Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan asxaabta ku xiran channelkan YouTube-ka Xiis Groups. Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal, in badan ayaanu kala maqnayn runtii mashquulo jira awgeed. Insha Allah waan isku soo laabanay. Waxaan halkan ka bilaabi doonaa maadada la yiraahdo HTML. ayaan halkan ka bilaabi doonaa aan ku baran doono insha Allah in ka badan 50 cashar oo aad ku daawan doonto luqadda afka Soomaaliga. maanta waxaan qaadan doonaa wax la yiraahdo hordhac ama introduction. soo furno. maanta waxaan qaadan doonaa wax la yiraahdo introduction ama hordhac. Okay, aan soo galno. marka hore waa maxay HTML? HTML maxaa laga soo gaabshay? maxayse tahay? waa su'aalo isweydiin mudan. runtii HTML waxaa laga soo gaabshay waa Hypertext Markup Language ayaa laga soo gaabiyey, oo H waxaa laga soo gaabiyey Hyper, T-dan waxaa laga soo gaabiyey Text, M-tan waxaa laga soo gaabiyey Markup, L-na waxaa laga soo gaabiyey Language. marka waxaa kaloo isweydiin mudan xarfahan Hypertext Markup maxay u taagan yihiin? aadaan runtii isweydiin mudan. Okay, hyper waxaa la yiraahdo ama link ha ahaato ama waxyaabo isku xira ama ka soo horjeeda qiyaas ka soo horjeeda ayaa la yiraahdaa hyper, ama hal link ha ahaadaan ama waxyaabo la mid ahaadaan. waxa kale oo la yiraahdaa text. markaad code qoraysid waxaad isticmaalaysaa waxa la yiraahdaa text oo waxbaad ku qoraysaa halkaas. Okay, waxaa la yiraahdaa markup. waxaad halkaas ku qorayso oo textiga ah ayuu bedelayaa oo wuxuu u bedelayaa as a real wax shaqeynaya. language-na waa luqadda aad ku qorayso code-ka ama luqadda aad isticmaalaysid marka aad code-ka qoraysid. hadda waxaan filayaa inaad fahantay waxyaabaha laga soo gaabshay HTML iyo macnahooda. Okay, waxa kugu xigta waxa la yiraahdo versions ama noocyada kala duwan ee HTML iyo versionada xilliga la soo saaray. 1991 ayaa la soo saaray HTML. 88 waa la sheegaa, laakiin dadka inta badan isku raacsan yihiin 1991. laakiin 86 iyo 88 website qaar ayaa qoraya, laakiin 1991 ayaa famous ah. sidoo kale HTML 2.0 ayaa soo baxay 1995-kii. HTML 3.2 ayaa soo baxay 1997 ama 1997. HTML 4.1 ayaa soo baxay 1999. XHTML ayaa soo baxay 2000. waxaa soo baxay 2014 HTML5 ayaa soo baxday. runtii haddana aad ayaa loo isticmaalaa HTML5, laakiin haddana waxaan baran doonaa waa HTML ayaan baran doonaa, ma ahan XHTML mana ahan HTML5. insha Allah waxaan bilaabi doonaa cashir ku xiga maadadeena toos ayaan u geli doonaa. waxaan cashirka u horeeyo yahay arranging ama waxa la yiraahdo qaabka tagiska ama paragraphida loo xiro. tagging open ayuu leeyahay, open iyo close waxaa jira waxa la yiraahdaa nested ama habayn. say wax u kala shaqeyn doonaan ayaan baran doonaa insha Allah. inta cashirkan ka faa'iideystay insha Allah cashirka ku xigana saad u heshiin channelka subscribe dhaha sina share gareeya muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.